من كان مريضا ومن كان مريضا الدين حقيقيو بريتول هادو إلهي نفط نقدر تعرف كوبيعن تهاي سيدة بيشة جنوري إن قدر كيو وقبيل سيدو هلطانو kulantuucan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halka naga daawanaysaa waa horsocod media aad mar walba ka daawataan ee barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa barnaamij gaar aan ku eegi doono fanaanka qadar Ibrahim Qadar Keyo oo laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa ee dalka Ethiopia. fanaanka Qadar Keyo ayaa ilaa 8 maalmood ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Ethiopia markii lagu qabtay passport aan exit lahayn. dadaalo badan oo la sameeyay sida lagu sii daan lahay fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la sii daayo fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo waxaana gacan weyn ka geystay xilwaano ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay xilwaan Carwo oo ka mid ah xilwaanada golaha shacabka Soomaaliyeed. ayaad barnaamijkeena ku maqan doontaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar kambalelkana furo si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay aan inta ku soo gudbino muuqaalkana like saar lacagna ma aho waadna ku maasantihiin daawashada aad daawanaysaan ee barnaamijyadeena. soo laabasho wanaagsan fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Ethiopia uu ku xirnaa ilaa 8 maalmood. fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay ee kuwa Soomaalida gaar ahaan ee ku nool magaalada Muqdisho. fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa u duulay sanadkii tagay ee 2019 ayuu fanaanka passport Ethiopian ka dalbaday ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia. Qadar ayaana ka daacsaday soo bixista wuxuuna u safray magaalada Hargeysa. muddo yar kadib ayaa fanaanka lagu soo wargeliyay in uu soo baxay passportkiisa Ethiopianka oo codsaday qof ayaana u soo qaaday uguna keenay Hargeysa. passportkuna ma lahayn wax exit ah ama ka bixis dalka maadaama shakhsiga bursadiisa lagu soo qaaday. Keyo ayaana u duulay Addis Ababa isagoo wata isla passportkii aan exit lahayn laakiin passportku u dhoofay uu ahaa Soomaali waaxda socdaalka dalkaasna ayaa qabatay fanaanka ayagoo booliiska ku wargeliyay in ay hayaan shakhsi wata 2 passport mid uusan lahayn bixista dalkooda. ehelada fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ugu horeeyo xilwaan Cabdiqaadir Carwo ayaa dadaal weyn ku bixiyay sidii lagu soo deyn lahaa fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo oo ku guuleystay. waxaa lagu wadaa maalinta maanta galabta markay ku beegantaa saacada 11 saac galabnimo ayuu fanaanka ka soo degi doonaa garoonka aadan cadda Elbor sida ay inoo shaaciyeen fanaaniin ka tirsan fanaaniinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay fanaanka Cabdi Dhaanto. soo dhaweynta fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa noqon doona soo dhaweyn aan wali loo kala harin waxaana ka qayb qaadan doona fanaaniinta kuwa ku nool ee gudaha Muqdisho. fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa fanaan dhibaato ku soo koray waxaana soo korisay ayadiis asagoo yar ayana dhimatay hooyadii iyo aabihii. fanaanka Qadar Ibrahim Qadar Keyo ayaa soo qaaday dhabanihii ugu dambeeyay hees ka hadlaysa micnaha uu leeyahay walaalnimada. waa ilaahay mahadi hadduu uu alla ka soo daayay xabsiga xabashida ee Ethiopia qofkii galo oo si fudud aan ugu soo bixi karin xabsiga Ethiopia waxaana xabsigaasi la dhigay Cabdikariin Qalbi Dhagax uu ku xirnaa ilaa iyo sanad iyo wax la jira waa uuna ka soo baxsaday markii cadaadis weyn la saaray dowladda Soomaaliya oo dhibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax. allahna wuu ka soo amaansaday. waxaa jira qofkii gala xabsiga Ethiopia si fudud inuu ka soo bixi karin waxaana adag sharciga Ethiopia markii dambe oo hogaanka Ethiopia oo iska fududaaday markii loo dhiibay xukunka Abiy Ahmed oo loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. waxaa haystay hogaan aad u adag oo qofkii xabsiga gala oo si fudud ugu soo baxsaday laakiin hadda waxa yimaaday Abiy Ahmed wasaaraha Ethiopia qoyskiisa u badan yihiin muslimiin oo laga yaabo naxariis in ay ku jirto. Abiy Ahmed ayaana
xiriir weyn la leh dowladda Soomaaliya oo hadda madaxweyne ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee kala saxiixdeen heshiisyo aad u fara badan oo ku saabsan dekedda Soomaaliya. horaantii sanadkii 2018 ayay ahayd markii laga soo daayay maxaabiis gaaraya ilaa iyo boqoliyo maxaabiis ah markii wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu cafis balaaran u fidiyay, waxaana cafiskaasi ka codsaday wasaaraha dalka Soomaaliya wasaare Xasan Cali Khayre uuna ka aqbalay wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed uuna ka soo daayay, waxaana aad ugu faraxay hooyooyin Soomaaliyeed oo dhalinyarteeda ay ka maqnaayeen dhowr sanadood. sanadkii 2006 ayay ahayd markii wasaaraha dalka Itoobiya ku ahaa Meles Zenawi uu cafis u fidiyay boqolaal dad ku xirnaayeen xabsiga Itoobiya. markaasi dalka Soomaaliya waxaa madaxweyne ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf, Allah u naxariisto, hadda geeriyooday. markaasi Cabdullaahi Yuusuf waxay isku dhowaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi oo madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf ka codsaday in la sii daayo dadka ku xiran xabsigaasi uuna ka aqbalay codsigiisa. marka shacabka Soomaaliyeed codsi u gudbiyeen dowladda Soomaaliya ayaana u dirtay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay xildhibaan Abduqaadir Carawow isku qoys ay yihiin fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo uuna u duulay xildhibaanka dalka Itoobiya si loo sii daayo fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo, wayna aqbaleen. waxaa kale oo jiray safiirka u fadhiya ee dalka Itoobiya Amey ayaana ka diiday dowladda Itoobiya in uu damiinto fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo, waana arrin aad loogu xumaado safiir dhan oo dal maamulaya in uu diido inuu damiinto fanaan la yaqaano caan ah. fanaanka Qadar Keyo waana fanaan caan ah geyga Soomaalida laga yaqaano, waana fanaan iska maskiin ah oo dhalinyaro ah oo ku soo koray nolol aad u adag. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa dadka ku xiran Horusocod Media u soo duceeyay fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo, ducadoodna Allah ayaa u aqbalay. halkan ayaa kala socon doonta soo dhaweynta fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo ee galabta lagu soo dhaweyn doona garoonka Aadan Cabdulle Aadan Cadde hadduu Allah idmo. intaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee aan ku eeynay fanaanka Qadar Ibraahim Qadar Keyo xabsiga laga soo daayay. waxaa si sharaf leh inaan ka codsanaynaa inaad channelkani subscribe saartaan. subscribe-kana lacag maahan, adigoo daawanaya xasid ma tihid, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u hesho warbixinada halkan aan ku soo gudbina u noqoto qofkii ugu horeeyay ee hor daawada muuqaalkana like saar. waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan barnaamijyadeena.